شعيرك وفها يقوسو وللان بحين با أوركيغا جيفو إهلكا اللهايو dadkii kala idhowno allay bada jacaylkiyo inuu kugu dhigooyaa udgoonow rasuulka calayhi salaatu wasalaam iridiisa jooga iilkiya xabaashaan walle adna ku sidaaya
waan filayaa in badan oo daawatada ka mid ah in ay dib u soo xasuusteen waayo iyo hobalada caanka binti Cumar Gacal waa tahay binti inta kadib goorma ayaad adigu si rasmi ah aad ugu wareegtay kooxda hobalada Waaberi ee qarankii maajikii waa su'aal meesha ku jirto runtii aad baad u mahadsan tahay heeskan hadda ku qaaday nugay markii aan qaadayay waa 80kii isla markii baan waxaan ka oo aan ka mid noqday fanaaniinta hobalada Waaberi ee qarankii ayaa qaateen okay aan u soo laabanay heeskii nugay ee imikadan hadda aad ku luuqeynaysaa heeskan runtii waa hees dareen gaar ah leh anigu heesaha aan dhageysta ayuu ka mid ahaa naftirkeyga heeskan erayada yaa sameeyay iska leh heeskan waxaa sameeyay Maxamed Cabdullaahi Ciise Sangub ha okay heeskani waxaa sameeyay abwaan Sangub ha okay heeskani ma adigu saameyn kugu yeeshay mise ma hees adiga lagu sameeyaba walow marka horena aad ii sheegtay heeskan inuu adiga uu yahay heesaha adiga aad ku luqeyso midka aad ugu jeceshahay bal marka hore waxaan jeclaan lahaa heestan inaad nooga faalooto waa wax meesha ku jiro heeskan waxa sameeysan hore u sheegnay Sangub waxaan waa jecelahay aan ku eerina wax weeyaan wax aniga qusay ma ahayn laakiin heeska kaliya ku soo caan baxay umada bulshada ay ugu barata ayuu ahaa laakiin abwaanka sameeyay iyo saameyn ku lahaa okay minti sida aan ogsoonahay fanka marka lagu soo biirayo waxa laga la kulmaa dhibaatooyin aad u fara badan aad iyo aad waayo wuxuu u baahan yahay garab in la siiyo qofka fanaanka ee fanka soo galay adiga yaa kugu dhiirigeliyay in aad fanka ku soo biirto oo aad ku mid noqoto kooxdii hobalada Waaberi oo aad maanta halkan aad ugu mahad celinayso waxa jikii mar walba waxaad weydiinaysaa su'aal laga maarmaana aad baan kaaga mahad celinayaa qof kasto wax kasto la bilaawayo wax bilawgay leeyihiin dhamaadna waa leeyihiin anu fanku markaan soo galayay ama aan ka mid noqonay waxa igu dhiirigeliyay anoo arday ah oo jecelayn inaan Waaberi aad noqonaysaan islahayn riwaayadii aan ku sheegay qiro qarin waxa ay dhiirigeliyay ninka la yiraahdo Sangub iyo Dalays ayaa ay keeneen tiyaatarka sidaas ayaa igu dhiirigeliyay ayagana isoo garab qabteen kaliya yaan ka xusin labadooda kaliya waxa kamid ah Allah naxariistay Xalimo Qalif Magool dadka ay garab qaban jiray Faadama Qaasin Ilowle Kaariye abwaan Cabdi Maxamed Amiin oo wali xaadir ku adalka dhanna uga bixin Cabdullaahi Yuusuf Xasan dadkaasi dhan waxay kamid ahaayeen dadka aad u jeclaa in aan fanaanad weyn aan noqdaan ilaahayna waa ku guuleeyay fanaanad weyn oo dalka iyo dibadiisa laga yaqaan ayaan noqday JK okay binti heesaha aad ku luqayso in kastoo hore aan u sheegnay heeska aniga iyo daawatada aad noo ciyaari lahayd oo music leh oo heesaha hore maxaad nooga doori lahayd maanta waxaan kugu tuuri lahaa hees la yiraahdo Balad Xaawo oo ay bulshada aad u jecel yihiin waxa sameeyay abwaan Yuusuf aadan Allah naxariistay inta aadan noogu tuurin heeska Balad Xaawo oo musiga isagoo oo runtii cod ahaan oo bila musiga inaad noogu dhufatana waan jeclaan lahaa waa qofka fanka waa in marka hore la ogaado music la'aan inuu heesi karaba si fiican barbarta yarkan